sidee ayaad ku ogaan kartaa qaab dhismeedka wajigaagu uu u sameysan yahay وموتينو وكان لافتيلكا soo dhawaada moogtahay qaab dhismeedka wajigaagu wuxuu go'aamiyaa isteelka kugu haboon iyo soo kale muraayadaha kugu haboon marka hore isa sawir oo eeg proportionka wajigaaga haddii kale booqo TikTok-ta kadib kasii booqo qaybta effects-ka kadib waxaad ku qortaa face shape guard waxa ku soo dhigayaa qaab dhismeed kala duwan wajiguna waxa uu sameysan yahay qaab dhismeed kala duwan waxa kamid ah round baa kamid ah waxa kamid ah oval baa kamid ah triangle baa kamid ah soo kale rectangle baa kamid ah square baa kamid ah iyo soo kale hair baa kamid ah diamond baa kamid ah runtii wajiyadu qaab dhismeedkoodu aad buu kala duwan yahay qof kastaana waxa uu leeyahay qaab dhismeed waji oo u gooni ah laakiin effectigani waxa uu ku sheegayaa qaab dhismeedka saxda ah ee kugu soo baxaya haddii wajigaagu sameysan yahay oval face ama qaab dhismeedka ovalka wajigaagu waa waji qaab dhismeedkiisu dhexdhexaad yahay sidoo kale dheer marka la eegayo balac ahaanta runtii dadka oval face-kaasina waxay leeyihiin flexibility aad u badan oo ah dhanka sunglasses-ka ama waxay xiran karaan muraayado kala duwan oo wajigoodu uu ku soo baxaya sidoo kale dhanka hairstyle-ka waxay u sameysan karayaan qaab dhismeedyo kala duwan ay timaha u xiran karaan ama ay u jaran karaan round face shape ama qaab dhismeedka round-ka u sameysan wajigan balac ahaan iyo dheer ahaan waa uu isku dhow yahay cheekiska qofkuna waa uu yara buuran yahay waxa ku jirta xoogaa fat ah haddii qaab dhismeed hairstyle kugu haboon aad ku xirato waxa uu ka dhigayaa wajigaaga waji yara dheer oo roundkii waa ka saaraya waanu yara qorqoraya square face shape ama qaab dhismeedka square-ka wajiga u sameysan wajigan jawlanku waa uu muuqdaa dibadda ayuu taagan yahay cheekiska iyo soo kalena forehead-kuna waa isku balac wajigan hairstyle-ka leh curves-ka iyo soo kale layers-ku waxa uu ka dhigayaa mid isku dheelitiran oo wanaagsan qaab dhismeedka wajigiisu sameysan yahay rectangle-ka ama long face shape-kaas runtii design-kana waa design kale oo qaab dhismeed waji oo ka duwan kuwii hore wajigani qaab dhismeedka dheer ahaan waa uu dheer yahay laakiin balac ahaan waa uu ka yar yahay oo san buu yara dhuuban yahay waxaana u baahan tahay haddii aad hairstyle aad u xiranayso in aad u xirato volume yara dheer si wajigaagu uu noqdo mid qorqoran haddii wajigaagu qaab dhismeedka wadnaha uu sameysan yahay sida camal wajigan forehead-kiisu aad buu dheer yahay marka koobaad cheekiskan ama bahladana waa iska meel dhexaad jinkuna waa uu dhuuban yahay haddii aad sameynayso hairstyle-na waa inaad u xirataa mid soo saaraya jawlankaaga soo kalena shape-kaaga ku soo baxaya soo kale waxaa jira triangle iyo diamond iyo wajiyo kale inshallah muuqaalada dambe ayaan ku sharaxi doonaa haddii u baahan tahay hairstyle-ka ku soo baxaya labiska ku soo baxaya wajigaagu nooc uu sameysan yahay booqo website-kayga kadib booqo qaybta services-ka kadib kasii dooro qaybta personal styling-ka waxaan ku diyaarinay waxyaabo aad u badan oo aad bartaa ka heli doonto oo qaab dhismeed labisyo kala duwan oo maalin 3 cisho 7 cisho 30 cisho iyo wixii ka badan ba adiguna la wadaag qaab dhismeedka wajigaagu sidee uu sameysan yahay